السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبركاته channel official fadlan taa ku cusubtahay channelkeeda subscribe saar like share kambalka lagu dhufasa oo la socotid fiidiyoda baa soo gali doona waxaa idin wadnaa qisaas oo ah mid aad qiro u leh dhegeysi wacan. wiil yar oo markii ay hooyadii dhimanaysay malaga naftu ooyay, laakiin markii uu isagu dhimanayay uu malagu naftu aad u qoslay. waa mid ka mid ah qisaska qiirada iyo yaabka badan ee ku jira taariikhda islaamka. Allah ayaa malaga nafta qaada u soo diray in uu nafta ka soo qaado gabadh ajasheedii dhammaatay. markii uu malaga u yimid gabadhii loo soo diray, waxa uu u yimid iyada oo safar ah oo joogta dhul lama degaan ah. malagii waxaa walwal ku abuuray gabadhan uu nafta ka qaadayo ee joogta dhulka geeri go'aanka ah, isla markaana haysata ilmo yar oo naaska jaqaya. markii uu dhan walba eegay, waxa uu arkay in goobta ay gabadhan uu nafta kaga qaadayo ayna aadama ka agdhaweyn oo aan xataa la filayn in uu si sahal ah ku sii maro. malagii ayaa aad u ilmeeyay isaga oo ka naxsan waxa ku dhici doona ilmahan yar ee ay gabadhu sidato marka uu hooyadii nafta ka qabto. waa malag oo hadal kama keeni karo amar uu alla u diray, sida awgeed isaga oo ilmeynayo ayuu nafta ka qabtay gabadhii. bartii cidlada ahayd aynu kaga tagnay meydkii gabadha iyo ilmihii yaraa oo isaga oo nool gosha ugu jira. sanado badan ayaa ka soo wareegay dhacdadan murugada ku abuurtay malaga. kadib mar dambe ayuu alle sidii caadiga ahayd malagii nafta qaadayay in uu nafta ka soo qaado nin. markii uu malagii soo qaaday odaygan oo da' ah, waxa uu dul taagnaa nin tumaal ah. waxa uu ka dalbanayay in uu jufo ugu sameeyo ul. erayada uu odaygani ku lahaa tumaalka ee malagii ka yaabiyey waxaa ka mid ahaa: war waxaan kaa rabaa inaad ii samayso jufo caqiibo leh si aanay ushani iiga madhan sanado badan. malagii ayaa markii uu odaygan iyo tumaalkii isku dhagaystay qosol haysan kari waayey, isaga oo la yaabsan sida adag ee uu odaygani ugu sii dhagsan yahay nolosha ee isaga oo da'daas ah. haddana uu weli ku fikirayo in uu ushani ay sii anfacdo sanado badan oo dambe, isaga oo aan ogeyn in cimrigiisa ay ka hadhsan yihiin ilbiriqsiyo oo malagii nafta ka qaadayay aynu garabkiisa ka dheerayn. malagii shaqadiisa ayaa uu qabsaday oo odaygii oo aan intifaacsan jufadii uu ushiisa uu doonayay ayaa uu nafta ka gudoomay. haddaba markii uu malagii odaygii nafta ka qaaday ayaa uu ilaahay malagii nafta u soo waxyooday: sharaftayda iyo weynidayda ayaa aan kugu dhaartee ee kii kaa oohiye weeyaan kan kaa qosliyey maanta. ayaa uu alle malagii ku yidhi: allahayow qaatumada khayr noogu qatim.